waxaan qaadanaynaa waxa la dhaho state management amaba maamulidda xogta. marka koodii waxaan ka bilaabaynaa state management caqabadda ay xalinayso. aan dhahno applicationkeena wuu weynaaday. halkan waxaa ku haysanaa parenty component. parenty componentgan waxaa kusii hoos jira child component oo child component. child componentgan waxaa kusii hoos jira mid kale. markii sidan ay noqdaan engineer haddii aan rabno ka waran kan inuu wax u gudbiyo kan siduu u gudbinayaa waxaa qasab noqonaysa marka koodii in kan lasoo marsiiyo haddana childigan kan lasii marsiiyo si childiga saddexaad loo gaarsiiyo. taas waxay noqonaysaa markaasi applicationkeeda inuu noqdo mid isku dhex yaacsan, mid wareer ah iyo steps aan loo baahnayn inuu raacayo. si arrinkaas loo xaliyo markaa waxaa isticmaalnay oo react samaysay state management waxa la dhaho. state managementigu waa container amaba weel weyn oo aan ku ridan karno dhammaan xogta aan rabno in componentskeena laga isticmaalo. aan dhahno halkan waxaan ku haysanaa jobs, aan dhahno waxaan ku haysanaa user, aan dhahno waxaan ku haysanaa product. xogta statekan noogu jirto waxaan kusoo xiraynaa applicationkeena. waxaan ka isticmaali karnaa parentiga, waxaan ku isticmaali karnaa childigan, waxaan ku isticmaali karnaa childigan kale keliya waa wacanaynaa. taas waxay ka dhigaysaa marka applicationkeena more easy, more smooth to use. caqabadaas state management xalinaysaa marka. react si caqabadaas u xaliso waxay samaysay hook ayaga ay diyaariyeen oo la dhaho use context ama context API. kan bay sameeyeen. maanta marka waxaan isla baranaynaa context API sidaan u isticmaalayno. sidoo kale waxaan baranaynaa Zustan oo iyadana ah library weyn oo react laga isticmaalo. markii developer aad tahay hadda beginner baan ahay laakiin haddii aad sii weynaataan waxaa u baahanaysaa state management. sababtaa markii shaqo sax aad ka shaqaynayso projectiga ka shaqaynayso 100% waa project yara weyn oo u baahan xog in lagu wadaago hal component ama wax ka badan. state management shaqo walba marka waa lagaga baahan yahay state management. waxaa jira Redux laakiin waxaa ka fudud oo hadda modern ah. sababtaa markii aan diyaarinayay coursekan waxaan ku talagalay wax walba oo halkan aan kusoo gudbinaya inay ahaadaan wax very modern ah. okay waxaan rabnaa marka inaan screenkeena afurno koorsada meeshii shalay ee maraysa aan ka bilaabno oo ahayd in productskii aan soo fejir inaan jobskii soo fej garaysanay aan ku xirnay filteringkii oo aan ku xirnay single page oo aan isticmaalayna use params. hadda marka waxaan sameynaynaa intii inoo harsaneed. alright guys, very exciting. waxaan rabaa marka koodii allahu mustacaan inaan screenkeyga idiin furo sidii shalay aan sameynay. waxaan samaysanay job detailskii, jobskii waa soo fejiraysanay, stepka wuxuu inoo marayay use custom hookskii waa samaysanay, componentyadii ebel inoo diyaarsanaayeen oo UI-ga ahaa keliya waxaan samaysanay API call oo aan jobskii horan soo wacanayno oo aan ka wacanayno API endpointgan uu garaad inoo sameeyey. waxaan kaloo ku darnay in single job aan soo fejiraysan karno. waxaa isticmaalnay custom hooks oo aad tusay sida loo isticmaalayo. waxaa isticmaalnay waxa la yidhaahdo allahu mustacaan waxaa isticmaalnay use memo, sidoo kale waxaa isticmaalnay use callback. labadaasba hook baan ugu soo kordhay shalay iyo custom hookskan oo aan samaysanay. maanta marka waxaan sameynaynaa context API. context API sida adii sheegay mushkiladda xalinayo waxaa la yidhahdaa prompt drilling. confusionkaas buu inaga xalinaya oo hal mar aan ka samaysan karno. alright marka koodii si context hook aan u isticmaalno waa inaan samaysanaa folder oo aan leenahay context. folderkan contextiga ah waxaa inoo sii dhex degaya markaasi aan dhahno jobs context ama waxaan leenahay bookmark context.jsx. sababtaan u sameynayno haddaa idiin sheego waxaan rabaa in halkan button aan kusoo daro oo qofku markii uu ku dhufto halkan uu ka arko inuu ku darsaday inuu save garaystay shaqadaas. heerarkan waa component ka madax bannaan job detailskan soo maaha. sidoo kale markii halkan aan ku dhufto waxaan rabaa button kale inaan kusii daro oo aan bookmarkiga aan kusii diri karo. markaan ku dhufto halkan nambaradii ay kasoo baxayaan, haddii aan ka jarana halkaas ay ka naqanayaan. taas waa example basiga oo context API aan ku arki karno. alright markii koodii context API aan u isticmaalno waxaan u baahan nahay inaan soo import garaysano something oo aan ka keensanayno react. maxaan u baahan nahay? waxaan u baahan nahay waxa la yidhahdo create context, waxaan u baahan nahay waxa la yidhahdo use context, sidoo kale waxaan u baahanaynaa waxa la yidhahdo waa idiin sheegi doonaa use memo. sababta use memo ugu baahan nahay waxaan kaloo u baahan nahay use callback iyo use callback.
use memo waxa weeyaan intii aan mar walbo wax isku mid aan samaysan lahayn inaan hal mar aan save garaysano tusaale ahaan reacti aan la hadalnay waxaan dhahaynay qiimahan xasuuso si aanan mar kasta dib ugu xisaabin keliya qiimaha noo hay isla qiimahaas noo wac ilaa ay wax iska bedelaan waxaan u dhiibi karnaa markaasi waxaan dhihi karnaa waxaa inoo haysaa number 10 number 11 number 2 alif ka waran haddii la dhaho mar walbo oo aan nambaradan u baahano mar kale la wacaya mar kale la wacaya use memo waxay samaynaysaa marka nambaradan inay hayso isla kuwa inana wacdo waxaa loo yaqaanaa waxaan rendering renderingkan markii aan ka hortagno wuxuu ka caawinayaa applicationkeena performancegiisa inuu ahaado fast accessibilitygiisa inuu fast ahaado haddii mar walba developer ahaan waxaa la isku dayaa requestiga oo aad u dirsanayso internetka ama serverka inaa yarayso taas waxay ka caawinaysaa applicationka performancegiisa inuu fast u noqdo marka caqabadaas waxay xalinaysaa use memo renderingkaas oo dhib u keenaya performancegaas tan laakiin use memo waxaa xalinaysaa value waxaa u dhiibanaynaa as a value 1 11 2 alif 13 use callbacka waxay iidan xalinaysaa isla renderingkii laakiin tan waxay xalinaysaa markii function uu yahay aan dhahno use jobs functionkan oo kale yay inoo xalinaysaa use callback si aanan mar walba u render garaynin markii aan sodhaxno use memo iyo use callback inaan halkaas ugu gudubno waxaan samaysanaynaa function react ay leedahay oo aan leenahay markaasi const waxaan leenahay bookmark context waxaad la mid dhigtaa create context sidii aan sheegay create context waa container waxaan u dhiibanaynaa xogtaas muhiimadeedu waxay tahay in applicationkeenu dhan aan ka isticmaali karno markii create container aan dhahno markii koodii waxaan u baahannahay inaan export gareyno functionkan oo aan u macdarno bookmark provider waxa waaye qaybihii waaye markii aan samaysano weelkii meeshii applicationkeena uu wax ka qaadan lahaa haddii childgana ujeedaan childrenkana ujeedaan wax walba oo ku dhex jiro providerkan waaye marka providerkan waxaan kusoo raabgaraynaa dhammaan applicationkeena taas macnaheedu waxay tahay dhammaan applicationkeena waa laga access garayn karaa functionskan iyo valueska iyo waxa aan ku haysano state managementkeena is that clear horta marka koodii valuega oo inoo hayo waxaan leenahay waa nal sababto ah waxba ma haysano markaan dhahno marka children waxaan samaysanaynaa use state oo aan leenahay markii koodii bookmarks let me say bookmarkska waxaa ka dhigtaa markii koodii empty sababta markii koodii waa inaan keedinaa liiska shaqo inaan haysano markii koodii waxaan haysanaa empty laakiin markii aan wacno waa inay isbedelaan okay ma aqaano autocomplete kan soo dareen waa very annoying waxa raba kasoo tegayna fahmo marabno autocomplete kan isticmaal markii koodii waxaan u baahannahay option aan ku dar karno add to bookmark optionkan wuxuu naga caawinayaa in job aan ku darno markii koodii bookmarka oo add to bookmark buttonka markaan ku darno inuu halkaa inoogu soo saaro waxaan kaloo u baahannahay function kale oo aan isagana remove job from bookmark si aan uga tirtiri karno markaasi bookmarkeena sidoo kale waxaan u baahannahay function oo isagana boolean ah sababtoo ah buttonka markii halkaan ku haysano waxaan rabnaa qoraal ka soo baxaya inuu kala duwanaado haddii bookmark aan ku darno inaan dhahno bookmark is added haddii aanan lagu darinna inaan dhahdo add ku dar haddii uu ku jiran inaan dhahdo ka bixi marka waa inaan marka aan leenahay check waxaan leenahay check if job is bookmarked saddexdaas hadda u baahannahay in across applicationkiina aan ka isticmaalo markoodii aan ka bilaabno markaasi ninkaan la yidhaahdo add to bookmark add to bookmarkan sida idin sheegay waa function waxaan isticmaalaynaa use callback waxaan leenahay markaasi add bookmark waxaan isticmaalaynaa use callback use callbackan wuxuu qaadanayaa value loo baas garaynayaa valuegaas wuxuu noqonayaa markaasi jobs wuxuu qaadanayaa dhammaan wuxuu qaadanayaa job aan dhahno sababtoo ah hal job baa loosoo baas garaynayaa hal shaqada lagu darayaa bookmarka one time marka waxaan leenahay markaasi allah mustacaan inaan dhahno set bookmark hadhow waa isticmaali doonaa set bookmarkan wuxuu i sameynayaa in uu jeegareeyo valuegii ma ku jiraa horta storekeeni amaba ma noo sii garaysan yahay haddii uu noo garaysan inuu ku daro haddii uunan ku jirinna haddii uu ku jirana inuu ka jaro marka waxaan leenahay markaasi oo aan u baahannahay inaan dhahno currency jeegareno ama previous waxaa rabtaa dhigi kartaa waa function samaysanaya kaas aan dhaho waxaan u baahannahay inaan jeegareno markaasi currency dot waxaan jeegarinaynaa sum okay kana dhamaystiro horta sum okay kan
okay waxaan rabaa marka sum use statekan waxaa u baahan inaan soo import garisto waxaan rabaa marka sumtan inaan sharxo akhiray sumtan iyada iyo map iyo filter iyo waxyaalahaas oo dhan waxay ka mid yihiin javascript functions ay leedahay markii hadda aan dhaho sum wuxuu fiirinayaa waxaan haysanaa array aan dhahno halkan community aan saaro waxaan haysanaa array aan dhahno oo 1 2 3 4 5 aan dhahno honesty waxaan haysanaa num macnaheedu waxay tahay haddii aan dhaho markaa num dot sum numberskaas dot sum wuxuu sameynayaa wuxuu ku dul wareegayaa numberskaas oo dhan haddii aan dhahno numberskaas jeegarayay haddii numberkaas uu la mid yahay haddii 1 uu la mid yahay number dot aan dhahno 2 macnaheedu waxay tahay waxaad jeegaraysaa dhammaan numberska ku dhex jira meeshaan haddii sama isticmaalino wuxuu jeegarinayaa numberskaas oo dhan wuxuu fiirinayaa ilaa number 1 laga arko markii number 1 laga arko wuu joojinaya markaas halkaas uu ku istaajinaya halkii uu samayn lahaa ilaa dhamaadka annagana waxaa haysanaa 900 oo waxyaabood 900 oo waxyaabood intii aan ku dul wareegi lahayn mid walba haddana aan soo noqon lahayn markii aan dhahno dot sum aan wadano value waxaan dhahno kale nambaradaan haysan oo dhan ka fiiri number 80 markaa hayso ii soo celi markaas uu fiirinayaa haddii uu helo wuu joojinayaa taas marka sumta taasay noo samaynaysaa dot sum markii aan dhaho wuxuu jeegaranayaa wuxuu jeegaranayaa job ID-da noogu jirto storekeena ma la mid tahay job ID-ga naloo soo wado haddii aan la mid ahayn wuu ku darayaa haddii aan la mid tahayna wuu ka saarayaa marka numberskaasaa u dhiibanay use callback wuxuu u baahan yahay in lagu soo xiro empty array si aan u isticmaalo okay hadda waxaan samaysanay in bookmarka lagu daro shaqo markii wax kale ma samaynayo wuxuu set bookmarkiska storeka noogu jira ka dhigayaa markooda inuu jeegarayo job ID-gaas haddii la mid tahay job ID-gana loo soo wado tan storeka aan ku haysano iyo tana loo soo wado isku mid yihiin haddii kale uu ku dara haddii aan isku mid ahayn uu ku daraya haddii kale uu ka saaraya haddii isku mid yihiin that easy waxaan u baahnaa marka inaan guda galno sidoo kale waxaan leenahay constantly remove bookmark bookmarkaas markaa ka saarayna marka isagana waa use callback waxaan isticmaalaynaa jobiska aan baas gari doonaa waxaan leenahay set bookmark okay automatically asaga idaba sida maraba inaan manual for keliya aan sharax markaasi markii sana dhaho remove bookmarkan wuxuu sameynayaa markaasi shaqooyinkoo liiska ka tirtiraya markii aan ka tirtirno intii ku hartay soconaya marka haddii tusaale ahaan shaqadii intaan ku darnay oo aan ka bixino wuu ka baxaya marka automatically removalkaas le weeyaan oo hosha inoo qabanayso okay ugu dambeyn waxaan u baahanaa markaasi inaan isticmaalno okay waxaan u baahanaa markaas inaan isticmaalno honesty is bookmarket bookmarket markaan dhahno waxaan leenahay use memo aan isticmaalinaa sababtoo waxaan rabnaa value inaan u dhigno use memo markii aan dhahno waxaan leenahay allah mustacaan use memo markii aan dhahno waxaan soo return garaynaynaa engineering markii koodii waxaan isticmaalaynaa bookmark.sum bookmarkaasaa haysano .id-giisa hadday la mid tahay jobkii naloo soo baasgariyay halkaan job u baasgaraynaynaa .id-geeda hadda waxaan malaynayaa tan waxa waaye xitaa job marna inaan baasgarayno job sababtoo halkaan kasoo return garaynaa wuxuu jegaranayaa keliya bookmarkiskan oo halkaan aan ku samaysanayo inoo yaalo storekan ID-ga ku jiro haddii uu la mac yahay la facfac yahay job.id macnaheedu waxa waaye haddii uu la mac yahay true noo soo saaraya haddii uu la facayna false noo soo saaraya waxaan rabaa marka conceptiga meesha uu ka macaya haddii inaan uso waxaan leeyahay valueskan oo dhan u dhiibaya markaasi ninka la dhaho honesty value waxaan leenahay waxaan isticmaalaynaa use memo iyadoo kale sidaa dad kuu sheegay use memo taasaa loo isticmaalaa use memoda waxaan u dhiibaynaa dhammaan bookmarkskeena haddii hadda aan ku sharxo intaan waxaan soo return garinaynaa bookmarkiska totalka haysano halkaan value aan ku wada haysanay waxaan soo return garinaynaa functionkii add bookmark remove bookmark iyo is bookmark oo true and false noo soo return garinayo okay sida ujeedaba propertygan waa boolean sida ujeedaba functionkan boolean waaye true or false un buu soo return garinayaa waxa kaliya hadda inoo dhimo markaas waxay tahay inaan soo return garino oo soo return garino oo aan dhahno aan soo return garino bookmark dot provider waxaan u dhiibaynaa valuega markaasi waxa halkaas inoo gelayo value waxaa u wada baas garanaynaa dhammaan
childrenska. Okay, halkan marka returnkan waxaan soo celinaynaa providerka qayb kasta oo providerkan ku jirta wax walba oo intaan ku dhex jira children ku dhex jiro waxay heli karaan value-ga aan ku haysano store-keena. Is that clear? Okay, aan kasii gudbo marka u dambeyso waa inaan export gareynaa si loo isticmaali karo. waxaan leenahay functionkan export gareyno automatically asa ii dhamaystirayo. Okay, waxaan leenahay markaasi export use by context sababta magaca sidaasaa ka dhigay. waxaan sameeyey use context yaa isticmaalay oo react iska lahayd. waxaan u baasgareeyey bookmark context kan haddii aan iska dhaaf kara keliya wuxuu jeegaranaya haddii context uuna jirin waxaa error baa soo celinaysa oo dhahdaa use my context must be used within the bookmark provider. kan waa iska tirtir karaa. ugu dambeynna waxaa soo celinaysaa marka contextigii. hadda weelkii meeshaan u yaalaa. meesha xiisaha badan oo hadda aan ku isticmaalayo waxay tahay inaan tago app.js-da. markii aan tago markoodii waxaa soo import garaysanayaa bookmark provider. waxaan ka keysanayaa bookmark provider. haddii halkaan iska tirtiro oo halkaan kore aan tago keliya aan qoro bookmark provider waxaa arkaysaa automatically asaa ii dhamaystira. haddaan ku dhufto importiga automatically meesha yaala asaa iga soo import garaynaa si aanan locationka iyo waxyaalahaas raadinteeda waqti aan ugu dhimin. Okay, wax walba oo halkan ku jiro waxaan dhex dhigayaa bookmark providerkan. taas macnaheedu waxay tahay weelkan wax walba oo intaan ku haysano storekan ama meeshan aan ku keysanay applicationkeen oo dhan waa laga access garan karaa. meel walbo component walba page walba keliya waa ka wacninaa waa ka isticmaalaynaa. si hadda aan kuu tuso sida u isticmaali karno waxaan tegaynaa layoutkeena ogaaw. waxaa la dhahaa bookmark doesn't my correspond disk. Okay, let me just check it. Bookmark provider waa run sababtoo ah halkan waxaan u baahannahay inaan maajgaraysiino nadaas. waxaa lagu haystaa halkan cannot find file bookmark provider.js. sababtu waxay tahay filekan magaciisa waa inuu la ekaadaa waxaan export garaynayno magaceeda. aan bedelo aan u baxsho bookmark.jsx. sidoo kale kanna aan u bixiyo bookmark kanna sidiisaba aan bedelo aan u baxsho bookmark context. Okay, haddii hadda aan fiirino wuxuu ku leeyahay bookmark context is not defined. waa runtiis sababtoo ah haddii halkan aan tagna hadda waa run sababtoo ah waa inaan dhahnaa sidoo kale magacii aan usoo baxsanaa u bixina waan dhahnaa bookmark context. hadda marka sidaa ujeedo waxaa arkaynaa inuu shaqeynayo. dhammaan applicationkeena waa laga access garayn karaa markaasi bookmarkaas. waa inaan tagnaa layoutkeena. markii layoutkeena aan tagno sidaa ujeedaba waxaa halka ku haysanaa laba linki. waxaan rabnaa inta inuu kasoo baxo linki loo count garaynayo. si aan usoo saarno halkan keliya ka wacanaynaa. waxaan wacanaynaa markaasi providerkeeni waxaan leenahay use bookmark context. markaan dhahno functionka waa soo celinaynaa. waxaan u dhiibanaynaa markaasi variable. waxaan leenahay bookmarks. kan wuxuu inoo soo celinayaa dhammaan bookmarkska noogu jiro storekeena. haddii halkan waxaan u baahana inaan kasoo saaro bookmark context .lengthgooda dhirarkooda intay leegyihiin. yani waxaan rabaa inaan kasoo saaro inta aan ku haysano length. Okay, haddii aan dhaho save oo refresh aan dhaho sorry bookmark context.length waa inaan sidan qorayo th. markaa sidaa dhaho waxaa halkaysa halka inuu noogu soo baxayo 0 sababtoo ah wax numbera kuma haysano. laakiin waxaa rabnaa marka inaan button halkaan ku darno oo markaan ku dhifano automatically numberkaan uu isbedelo bookmarkeena aan wax ku darsano. si aan u sameyno markaasi waxaan tegaynaa markaasi allahu mustacaan aan tagno top view dena. top viewgii waa kan pagekan hadda aan joogo. top viewgan waxaan ku darayaa markaasi button. markii detailskan kadib waxaan ku darayaa button aan dhaho waa kan waa buttonkaas waxaan leeyahay markaasi horta markooda intaana buttonkaas on keligiisa aan eegin waxaan u baahanahay isla sidii oo kale inaan sameeyo. maxaan sameynaya waxaan tegayaa halkan waxaan soo import garaysana waxaan u baahanahay use bookmark context inaan isticmaalo. markooda waxaan leeyahay iisoo qabo add bookmark, iisoo qabo remove bookmark, iisoo qabo is bookmark. Okay, waxaan leeyahay add bookmark aan u baahanahay si aan bookmarkeyga wax aan u daro. buttonkii hadda aan ku daray yaan tegayaa markaasi waxaan ku darayaa on click oo macnaheedu yahay markii buttonkan lagu dhufto on click. markii buttonkan lagu dhufto waxaan u baahannahay inaan anonymous function aan samaysano oo aan leenahay wax kale haynoo sameynayn. waxaad jeeganaysaa if is bookmarked.
oo aan u baas garaynayno job.id. haddii yani jobkan idgeeda uu ku jiro contextigeena, then waxaad samaynaysaa markaasi waa wacdaa, then let's say waxaan wacaynaa markaasi remove bookmark si aan u tirtirno bookmarkeena kaas ku jira oo aan u baas garaynayno job.id. safe haddii aan dhaho hadda, aan dhaho sababto hadda waxba inooguma jiraan, kan detailska magacaan ka bedelo oo aan u baxno safe aan u bixinaa. markii safe aan dhaho hadda waxa ma dhacaya sababtoo ah waxaan jeekarayna keliya haddii bookmark uu ku jiro. haddii kale else waa inaan dhahnaa add bookmark oo aan u baas garaynayno shaqadan. markii saas hadda aan sameyno oo ku dhufan safe, waxaan arkaynaa halkan number 1 inay noqonayso qoraalkan safeta halkan iga soo baxayo. waana dhaha horto if is bookmarked oo bookmarked lagu daray oo u baas garayna job id, waxaa dhahdaa remove, haddii kale waxaa dhahdaa add. markii hadda aan jeegno wuxuu ku leeyahay add, macnaheedu waxay tahay job id dan wax qalday. okay if you manage bookmarked add bookmark way shaqaynaysaa, laakiin markii aan ka bixinayno jacalada ay ka taagan tahay. okay waxaan shaqaynayna hadda ku sheegaa waxaan shaqaynayn waa bookmarkkan. okay bookmarkkan sababtay u shaqaynayn maxay tahay, waa inaan baas garinaa job id sida ujeeda hadda way shaqaynaysaa. sababtoo waxaan sameynaynay waan leeyahay job.id halkii job id le keliya aan leeyahay, sababtoo job id almost hore baan u haysanay. marka hadda waxaan arkaynaa button inaan ku darnay, markii buttonkan aan ku dhufano aan ku dari karno bookmarka, haddii aan ka bixinana uu ka baxayo meeshan aan ka isticmaalo. waxaan kaloo sidoo kale ka isticmaalaynaa details pagekan sidaan u isticmaalno keliya waxaan soo qaadanaynaa intii pagekan detailkan aan rabnaa inaan kasii isticmaalno. waxaan soo qaadanaynaa intii, waxaan tegaynaa halkan kanaan soo import garaysanaa leenahay buttonkiina sidiisii aan darsanayna. buttonkan isoo qaad isoo koobiye intaan buttonka ah hoos aan tago halkan apply distrokan kadib aan ku darsado kanaan soo import garaysto. okay waa runtiis mar walbo hook must be defined conditionally. okay meesha ugu koraysa inaan ka wacno yaa fiican practice ahaan. hadda markii buttonka aan ku dhufano waxaan arkaysaa 3 inuu noqonayo aan ka bixi karno. hadda design muhiim ah hadda aan ka bixi karno at detailka aan tagno aan ku dari karno page walba aan tagno sidii uu inoo dhow soconayo jobska haddaan ku dhufano kan aan ku dari karno. markii detailka aan tagno page component kan aan soo saari karno. waxaan arkaynaa inuu shaqaynayo very good weliba. kadib waxaa u gudgeli doonaa hadda markaas kadib inaan isticmaalo libraries kale oo zustan iyo waxyaalahaas, laakiin hadda context waa sidaan component walba inta u basgaray lahayn halkii component waa isticmaalaynaa kaasaan inoo shaqaynaya markaasi. kan aan dhaho margin lefty for si kan uu ugu yara durugto, aan dhaho sidoo kale padding x for okay good. hadda good waay. intaasaa maanta koorsadeen aan kusoo aan gabagabaysanaynaa. mar kale yaa kulmayna insha allah. see you later.